waa maxay sababta dadka Shiinuhu ay sida ugu qodayaan dhulka daawade hagaage waxaan aad arkaysaa waa mid ka mid ah dalagyada ugu adag adduunka in la beero magaciisana waxa la yiraahdaa Yams waxaana aad u adag in la goosto midhaha iyo cibta amba Yamska iyada oo aan la isticmaaleyn amba la adeegsanayn qodaalka waaweyn sida cagaftan ku muuqata hadda oo kale sababtoo ah waxa lagu beeraa iyadoo la adeegsanayo farsamo ah in dhulka la dalooliyo in badan tanina waxay u suuro gelinaysaa inay u koraan dharar la mid ah kan bini aadamka marka la soo saarayo waxaana suuqyada lagaga iibiyaa qiimo sare iyagoo jooga waxayna gaadhaa lacagta lagu gala kataa marka la joogo suuqyada $10,000 sababa la xidhiidha nafaqooyinka aadka u sareeya ee uu leeyahay geedkani haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo sidee ayaad u aragtaa farsamadan cajiibka ee lagu beerayo geedka lagu magacaabo Yamska si geedkan hore ma u aragtay qaybta kommentiga hoose iigu sheeg ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saaranna aad subscribe dhahdo